وين عليا مركا هويدي markii aan waxoogaa ku celceliyay aan waxba de ahayn anagu hayna waxba ahayn ayay buraamuriitris intaad xasuusan tahay kuma harin xaq dhowr xubeer baan kugu arkaayo ku xambaarshay duco ubadku ku xeebay maalintaad ka xoog yar tahay halkaasana ana ka qaatay maan gudin xaqaagii xanaftiyo kulaylkii fooshiyo xanuunkii xarbadhabashadaadii codku kula xabeebsaday xumadiyo wareerkii xididada jidhkaaga iyo xubnahaaga hooyooy wixii aan xanuun baday ama oonta kaa xidhay miyaan xalay ta jiifsaday sow ma gelin xusuustood xinjirtaan ka beermaay xabkii layga bururshaay xigsintaan ku ababaay xaruntii jidhkayga iyo xundhurtaydu taallaay inkastaan xuskaaga iyo isku dayay xaqaagii xanjeerkaaga oo qura xurmadiisii maan gudin hooyay xumaan iyo xanuun eebba kuma bado xaqiraadna kaahay xafidaad ku noolow dadku kuu xigaal noqoy xasad eebba kaa dhowr qabriga iyo xabaashana rabbi meel xun kuma dhigo xawdkii rasuulkiiyo janno iyo xariir mudo anigoo yarba aabbahay dhintay aakhirka 47kii ama 75 bilowgiisii 1900 abaar xun baa dhacday oo la oran jiray dabadheer oo caan ah abaartaas aabbahay ku xijaabtay ilaahay u naxariistay iyo caruurtayadii oo malaa 8 baanu ahayno labo baanu kaga hadhnay 6 baa iyana ku dhintay annagoo qurana ma ahayne qoysas badan oo sidaas 100 oo qoys gaadhay malaa ayaa qoys walba qof iyo laba u hadh daacun baan galay marka aniga nin kale oo iga weyn ayaa soo hadhay hooyaday wixii ay naf iyo adduun iyo tacab lahayd labadeedaas ay dul dhigtay سينو كورين لهي wax nooga dhigi lahayd yaani waxaan oran karaa waa qofka ugu weyn noloshayda hatta cid soo labaysa aanan garanayn ee noloshayda meel ka soo saaray dhalinyarada imika ama casrigan waxa aad loogu fikiraa inuu ku wax barto oo dabeetana jaamacad ka baxo oo CV wanaagsan oo PhD ama master ama sidaan oo ugu yaraan degree oo dabeetana uu shaqo helo mitaa ka duwan baan idin sheegaya 20 shahaado hadda sidato oo Mareykan iyo Yurub ah oo waalidka ku habaaro shaqo ka dhakubsiimays waalidku kaalinta cajiibka ah ayuu leeyahay haddaad ifka ku soo gaadho labadaada waalid waa chance ilaahay haddii uu ka aqbalo jannadana aad ku gali karto haddii aad xumaan ka shaqaysato cadaabtana aad ku galayso marka dadka waalidku u duceeya intaan aakhiraba la gaadhin adduunkay ku arkaan ducada waalidka kuway habaaraana midba aabihii waxa la habaarka ka dhintayoo markii noloshii uu meel kala qabsada waayay ayuu wuxuu warnin dhintay in nool see loogu garnaqa tayo garnaqaya odaygu la dhimay marka waxaan la dhaliyaroy waalidka ka warhaya oo ducadu meel ciriiriyoon bay ku jirtaa kala soo baxa nin walo wax ismoodaaba adu ku hoos imanaya hadii duca waalid aad leedahay anigu sababta aan soo sheegay baa jirtay hooyaday saasay ila soo kifaaxday تعبنا بيجلس رنتي وأنا شرح كراينين طبعا تنمركي أن وينادي أيان السري وحكو علي والإسلام كل حلي هاي المهم مركو يري هاي نواجب والد كساري محل أقولي هاي مركز شنية تبان قاعدو والد كعنتي المسؤولية دي وكبح يا محل أقولي مركز ويناتي أدو حوجي على تو والد كيبا تمرد الرهينة يا هل كي أدو أشلي كوتشر مركز عروتها هاي قعنت اللي وهاي أيا والد كوتشرا مركز سال الدنيا نواجب كائنات قاعدته waayo waa markii ducada iyo inta ugu wanaagsan ay ku harsanay xaaladaydi aniga wuu soo koriyay waalidku ana weenan celiya marka hooyaday markii aan waxoogaa ku celceliyay aan waxba de ahayn anigu hayna waxba ahayn ayay buraamuriitris badan bay tiris marka kana soo qaadanay waxa ku tiri intaad xasuusan tahay kuma harin xaq dhowr xubeer baan kugu arkaayo ku xambaarshay duco ubadku ku xeebay maalintaad ka xoog yar tahay xajkiina dawaafo xaakimku ku gee balada ka waran ubadku ku xeebay markaad ka xoog yar tahay waxa laga yaabaa 70 jir anigoo ah marka iyadu ma noola markaas ay sii turaysa xilliga yay leedahay ilaahay ubadka kaama xubeeyo da'daydii bay hadar ka sii warwaraysa marka erayga ay leedahay haddaad xasuusan tahay kuma harin xaq dhowr erayga ayaan tix raacay dabeetana waxaan erayga u arkay
inaanay iga dhaweyn halkaasana ka qaatay maan gudin xaqaagii iyana waxay tiri kuma hadhin xaq dhaw Soomaa ana waxa dhimaan gudin xaqaagii yani waxa leeyahay hooyo waxa yaraan soo turtuuray wax macna leh ma aha igamana dhawa dabeetana waxaan isiri hadaba maansada si fiican bulshada ugu gaarsi waa maansa u taagan hooyo oo dhan ma aha aniga kaliya hooyaday hooyo dhan bay u taagantay waxaan yiri xidigaha darbaa jira xigmad lagu tilmaansado geelana xusuus baa bariya lagu xirgeeyaa xawayaanku geedow haddii uu xabaar galo kalgacaylka xunshadu inta kale ka xeel dheer waxa la yiraahdaa xunshada ugu kalgacal badan xawayaanka geedigaasina waa abwaan axmed awgeediyaan ku halqabsaday xanaftiyo kulaylkii fooshiyo xanuunkii xarbadhabashadaadii codku kula xabeebsaday xumadiyo wareerkii xididada jidhkaaga iyo xubnahaaga hooyooy wixii aan xanuun baday ama oonta kaa xidhay miyaan xalay ta jiifsaday sow ma gelin xusuustood xinjirtaan ka beermaay xabkii layga bururshaay xigsintaan ku ababaay xaruntii jidhkayga iyo xundhurtaydu taalaay inkastaan xuskaaga iyo isku dayay xaqaagii xanjeerkaaga oo qura xurmadiisii maan gudin xaqiiqdii adduunyada xigashada aqoontiyo xilkasnimo adaa baray mar xadaari baa tahay mar xigmaawi baa tahay mar xaraarta nolosha iyo xeeldheeri baa tahay marra bara xariifoo xiisadii dhigaa tahay marra xabag barsheed iyo qurus xaya baa tahay carabta waxay yiraahdaan al-ummu xay haddii hooyadaa nooshahay bariiskaagu waa bisliya xabiibkii la doortiyo ambiyada xushmaynta leh axbaabtii rasuulka iyo xamse iyo caloo kale calayhi salaatu wasalaam ama xaarith iyo cumar abubakar xogtiisiyo caashiya xafsoo jiray adigaa xambaaroo hooyay xanaanshaye xulashada haldoorka ah miyaan kaa xisdiyaya xurmadaada hooyooy dahabkiiyo xariirtiyo xooluhu ma gooyaan xubbigaaga hooyooy aadmigu xisaab iyo xaraf kuma dhammayn karo 3 jeer xadiiskii i xujeeyay baa tahay jannadiiyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xaragada adduunkiyo xiisahaygii baa tahay sharaftuna xaggaagiyo xeerintaada weeyaan xoogaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu xay tahay xidigaagu dheeraa sidii xaawo loo yidhi haweenkeennu xoog iyo xilkas bay ahaayeen sidii xididba loo yidhi haweenkeennu xaas iyo xarun bay ahaayeen xarbi iyo dagaal iyo haddii ay xornimo tahay ama ay xasilin tahay dhaqan iyo xishoo tahay haddaan dumarku xeel iyo xag kastaba ka dalab tirin xadhiggeenna soo hayn xogogaan la weydiin xaajadeenna guul iyo xal miyaad ka filaysaa waa maya nabsaa xaaba lagu dayay aniguna xilmaan gudan xajka hooyo maangeyn xashashaqa warkaagiyo dhabtii lagu xasili jiray xubbigii iyo kalgacalkii iyo hadalkii xidaysnaa xiisaha jidhkaagiiyo sidaan ugu xadrayn jiray ama aad xanaanada hooya iigu xeerayd adaan taada xaalayn sidaad ii xasuusnayd alluunbaa xisaabshoo maan gudin xaqaagii xaamilo shinkeed go'ay iyo xoolka dharabta ah iyo naaska xooxda leh sawcali xogtiisiyo xigashada la yaab kale xujadiisu ima gelin xilligaa isgurayee aabbana xogtiisiyo xayiigtiisa kama tegin kaalintiisa maan xaman haddaan xeerka waayaha laba waalid loo xulin xaajigu sargoynayn miyay xagalka daaciyo xadaafiirba weyda xagashada dareenkiyo xubin iga dardaarana xabageed ku taaliya dadku xoola maahee inta aadmi xay yahay xuska eebba waa kow xubeer waalid waa 2 xidhiidhkiiyo islaamkana xubintaada noole xalaal miirashada guud xeradaada ka adkow hanfigii xagaagiyo sida xeebha kululaan durdur iyo xareed iyo xays iyo ugbaad noqo iyo muumin xoog badan tixda aan ku soo xidho hooyay xumaan iyo xanuun eebba kuma bado xaqiraadna kaahay xafidaad ku noolow
dadku kuu xigaal noqoy xasad eebba kaa dhow qabrigiiyo xabaashana rabbi meel xun kuma dhigo xawdkii rasuulkiiyo janno iyo xariir mudo عليه الصلاة والسلام انت صورت تحريق قدام تهي هل كلمة بان راعينيا من كان شيغي علي بارود بالي هذا هل كانوا فدياس نكبد بين اوران دونا نكاس وين المعجزه سغا شيغ دونا لبا سنادود iyo barba hooyadii caloosha ku sid dadku soo sagaal bilood kuma dhashaan laba iyo barba caloosha ku sid naaska 4 sanadood buu shaqay waniga markaa ku hal qabsaday yiri soo cali xogtiisiyo xigashada la yaab kale xujadiisu ima gelin inta hadhayna isaga inoo si faahfaahin doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.